Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Karen ee qurxin barnaamijkiisii caafimaadka ahaa. Waxaan idin soo jeedinaysaa anigoo ah Dr. Roon. Maanta waxaa ka hadli doonaa ilka xanuunka ama the dental cavity ayaa ka hadli doonaa. maxaa cause garay horta dental cavity waxaa cause garaysa bacteriadu build up sameysay inside the bulb chamber taasoo infected noqotay oo qofkii ilkihii markii ay bacteriada ay gasho maybe infection noqon karto, barari karto, ilkihii bararisa geli karto. haddana bacteriada markii qofkii gudaha u gasho way sii qodaysaa siday meesha ugu dambeysay u gaarto. maxaa cause gareeyo qofkii inuu wax mamacaan u cuno like the ice cream oo kale, jalaatadoo kale. haddana qofkii markuu shaaxiisii uu cabayo oo sokorta saaid uga badsado ayagana macmacaanka ilkihii ku reebaysaa. qofkii haddana sokortii afka ku shubto mase ayadoo sokortii wixii macmacaanka iska cadayn la jiifto like the buskud oo kale, sweet things oo kale, xalwada, waxaas dhan macmacaanka ahaa. qofkii haddana macmacaankii markuu cuno ilkihiisa asigoo ka nadiifin ayuu qofkii ku jiifanaya, bacteriadana way kusii koraysaa. maxay qofkii uu iskaga ilaali karaa? qofkii muxuu isticmaali karaa oo kale xabag soodada saliida la dhahaayo, cloveko kale sida dhagayarahoo kale. qofkii tuuntii oo kale haddana inuu calaanjiyo meeshii duleysho saari karaa. haddana this herbal caleentan very effective waa way u fiican tahay gooska qofka markuu xanuunayo meesha xanuunayso markuu iska saaro inuu calaanjiyo waxyar. haddana muxuu kaloo sameyn karaa the best way intuu qofkii dhakhtarka uu gaaray inuu biyo qandac cusbo ku darsado oo ku luqluqdo mise meeshii bugtay uu saaro. haddana qofkii waxaa laga rabaa daily inuu buraashto maadaama wax macmacaan cuntay saa ilkahaada uga taxadirtid eena bacteriadii ee jirka iligti eena sii qodin. waxaa fiican qofkii daily inuu cadaysto adii maalintii haddii qofkii uu awoodi karo hygienic uu yahay qofkii mar walba cunto cuno oo iska cadeeyo mase habeenkii markaa jiifanaysid iyo subaxii markaa kasoo kacda ilkii si fiican iskaga cadaysid saa wasaqda iyo waxa iskaga ilaalisid. xataa qofka asigoo cadaysanin xitaa bacteriadu way gali kartaa wayna duleeli kartaa gooskii. qofkii inuu dhakhtarkiisii la kaashado oo u tago camal check up monthly oo sameeyo or once a year oo sameeyo qofkii oo dhakhtarkiisa la tashado oo ogaado ilkihiisa caafimaadkooda oo ka taxadiro. haddana qofkii saas oo kale wuxuu sii sameyn karaa saliida xabag soodada la dhahay qofkii baa daily adi maalintii ama isbuucii mar inuu qofkii ku luqluqdo xabag soodadan way fiican tahay, saaid ay ilka ugu fiican tahay. waxay ka caawinaysaa meelihii ee bacteriada dulduleelisay saaid ay ugu fiican tahay. haddana ciridkii ee bacteriada waxa gaarsiisay way u fiican tahay. oo qofkii haddii uu daaweyn kari waayay goos xanuunkii waxaa u fiican the best option inuu iska bixiyo. haddii aad ka faa'iiday like, subscribe and share saa u ogaatid caafimaadii adiga kugu saabsan.